وادمنينا والله وادمنينا يوم من الأيام الله سان هر استاجدونا محن ugu jawaabayna jalla wa ala markuu na weydiiyay cimrigeena cilmigeena iyo hantideena waxaan ku sameeynay asigana nasiistay dunida martibayna ku nahay ilaahay ba iska leh waqti kooban baan la ku asumay inaanu joogno oo marti ku noqono asumadaasi hadayna ka dhamaatana wa hooyanayna god baanu galay wali waqtigan maanta la joogo waa aakhiru zaman mawtul fajr wa banayh geerida lama filaanka ilaahay nabiga uu ka migan gali jiray nabigu ilaahay ka migan gali jiray ilaahu mawtul fajr baan ka migan gali oranji way badan tahay maanta sida awgeed baa dhimashadu badan tahay oo mawtul fajr u badan yahay qof walowba adigu bal waxaad isku daydaa inaad toosnaatid ilaahay iyo adiga xiriirka idin dhaxeeya bal hagaaji waxa la waxay tahay male adduunyada tani waxa la waxay tahay male goor gudcura oo habeen ah ka dhaxbax magaalada iyo nalalkan iyo magaaladan iyo iftiinka ka dhaxbax baadiyaha tag dayaxna habeenka ma jiro erka fiiri hadaad cabsan weydo waa cabsi baa ku galaysa hadhiimaanin oo godka ha gelin adoo dambiila ah in alla u toobadkeent kullu ibn aadam khata' wa khayrul khata'ina at-tawwabun ina aadan oo dhan wuu gafaya laakiin inta gaftaa waxa uu khayr badan kuwa soo noqoshada badan maxaan ugu jawaabayna jalla wa ala markuu na weydiiyay cimrigeena cilmigeena iyo hantideena waxaan ku sameeynay asigana nasiistay anagoo caasinaynuna arzaaqa habeenkii waad jeexataa hurda raaxo badan waa soo toostaa adigoo xibnahaaga dhaqdhaqaaqayaan ooliya laguma shubo gaas laguma shubo electric ma kugu shidna waxaad arkay waxaad maqlay waxaad dhadhaminay haddana asigaa kula dagaalamay kabta aad gashan tahay ee suunkeedu fartaada iyo suulka saaran yahay geeridu waa idinka dhowdayba nabigu calayhi salaatu wasalaam adoo socdaad dhiman kartaa adoo fadhiyaad dhiman kartaa adoo taagan baad dhiman kartaa adoo jiifaad dhiman kartaa muhiimaddu waxa weeye waa dhiman oo geeri waa lama huraan laakiin adigoo ilaahay ku xiriirsan oo wadadiisii ku toosan geeridu ha ku timaado anagoo rasuulka la joogna calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamid ah ayaa wuxuu arkay dad meel ku urursan markaasuu wuxuu yidhi war halkaa maxaa ka jira dadku ku urursan yihiin rasuulka ilaahay oo xabaal bay qodayaan markaasuu yidhi yaa xabaal bay qodayaan kabaha intuu iladay ayuu dhaqaaqay nebigu isagoo dheeraynaya waanu gaari kari weynayoo annaguna waa la laba lixaadsanay oo waa daba soconnay wuxuu lixaadsado oo rasuulku tallaabsado meeshii qabriga laga qodayay ayuu tegay calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulku qabrigii arkay oo la qodayo waa argagax waa isbedelay ilma indhihiisa ka soo daadatay calayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku uu kada loobsaday albaraa ibn caazib oo xadiiska warinaya wuxuu yidhi waan daba socday intaan soo wareegay ayaan halkaa hortiisa soo fadhiistay bal anigoo eegaya rasuulka waxa uu odhan doono rasuulku waa ilmeynaya calayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku nagu soo jeestay markuu cabbaar fooraray oo ilmadii ka soo daadatay dhulka ay ku dhibcayso garhkiisii ka dhibcayso ayuu kor noo soo eegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ay ikhwaanii istacidduu lihaada alyowm walaalahayow maalinkan oo kale u diyaargarooba nin walooba xabaal baa ku sugaysee maalinkaasoo kale u diyaargarooba nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh